السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة لي الصلاة شوعا كوسوين كيني وبدفلوبتك وحسوق قادني فرونت اند ديجا جارهان HTML CSS JavaScript React.js جدي كده هبدي سو كله تلوين CSS ayaan soo qaadanay soo dhammaan kursooyinkaas waxay ahaayeen front end oo ah kursooyinka ugu muhiimsan ee HTML CSS JavaScript soo kale waxaan soo qaadanay frameworks iyo libraries kala ah framework تلوين CSS oo aan u isticmaalay stylinga soo kale waxaan soo qaadanay library oo caansan ee React.js oo markaasi development front end aynu isticmaali doono insha Allah qaybta full stack soo kale waxaan soo qaadanay GitHub oo ah wax uu u baahan yahay qof walba developer marka hadda waxaa bilaabi karaysaa inaad baratid qaybta backend marka waxaa idin diyaarinay course dhammaystiran oo aad ku baranaysid qaabka markaasi backend loo diyaariyo loona sameeyo course-ka waxaad ku baranaysaa Node.js iyo sidoo kale Express.js waxaad ku baranaysaa waa maxay Node.js sidoo kale waxaad ku baranaysaa sida JavaScript loogu dhex qoro Node.js-ka iyadoo markaa lagu dhex qori doono outside of the browser sidoo kale waxaad baranaysaa wax loo yaqaano file system waxaad baranaysaa serverka wuxuu yahay qaabka loo sameeyo sidoo kale waxaad baran doontaa Express-ka sida loo habeeyo gaar ahaan qaabka markaas ula shaqeeyo Node.js-ka maadaama Express uu yahay framework caanka ah ee markaas lala isticmaalo Node.js-ka sidoo kale waxaad tusaanaysaa markaa baranayno backend uma baahnin inaan barano luqad kale luqadan isticmaalayno waxaa weeye luqadii JavaScript waxaad sidoo kale ku baran doontaa course gudihiisa sida loo diyaariyo API oo loo yaqaano application programming interface oo kala duwan waxaan baran doonaa sida loo diyaariyo API sida data loo abuuro data loo deleedo sidoo kale waxaan baran doonaa sida wax loo yaqaano routeska sida loo diyaariyo iyo waxyaalo kale oo badan sidoo kale waxaan diyaarin doonaa backend dhammaystiran inagoo markaa backend isku xiri doono course-ka xiga ee MongoDB markii kusoo dhawaada course-kan aynu ku baran doono Node.js iyo Express.js welcome again